Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Bari iyo gudoomiyaha deegaanka Wardheer ayaa ka dhagax-dhigay saldhig ay yeelan doonto deegaankaasi oo dadka ka saaciidi doona in lagu xiro eedeysanayaasha. sidoo kale waxa uu sheegay inay gacan uga baahan yihiin maamulka Puntland sidoo kale ayagana doorkooda ka qaadan doonaan dhisidda saldhigan cusub ee Wardheer. waa kan Maxamed Axmed gudoomiyaha deegaanka Wardheer. rugta saldhiga nabadgelyada markii rugta aad samayso waxaad helaysaa information badan oo khuseeya hawlaha dawladda baa helaysaa. annagu saldhig ma lehin degmaale rug baan leenahay rugta noo dhagax-dhigo kutubishkana qaybteeda la ku qoro dawladuna qaybteeda nagu qodho madaxweynaha warkaa naga gaarsii aad baan u mahadsantihiin. Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Bari gaashaan sare Xuseen Ali Maxamuud ayaa ducdiisa ballanqaad u sameeyay dadka deegaanka Wardheer isagoo uga mahad celiyay dadaalkooda ku aadan la shaqeynta dawladda iyo ciidamada booliska. haddii awalba waxa la yiri war meel beer raacay Wardheer baa ahaydeen warkiinu aad buu dheer yahay nimanka ugu war fiican baati sababtoo ah hadda taahana la ka qabto annaga diyaar waxaan u nahay mar walba inaan garab taaganahay inaan shaqeynayno inaan habeen iyo maalin bayna iman doono. waxa ogaataan reer Wardheerow waxa weeye degmo cusub aad tihiin tuulo cusub aad tihiin degmana wuu gudbi doontaan waxa leen ka rabaa wada shaqeyntii dawladda indhaha iyaga baad tihiin annaguna wixii karaamka iyaga ah oo dhinac iyaga jira sida gudoomiyuhu sheegay rugta booliska iyo wixii kale oo loo baahan yahay dawladda fariintan waa gaarsiin doonaa. annaga booliisaan wixii naga aadana waa diyaarinayna haddii alla diyaar baan u nahay waxaan diyaarinahay inaan si dhow la shaqeyn doono mar badan inaan ku soo noqon doono. Abduqaadir Fiidka SBC Wardheer ee gobolka Bari.